بسم الله الحمد لله رب العالمين waxaan maanta halkaan rabnaa inaan u sheegno dadweynaha Jubbaland gaar ahaan Kismaayo in dadka qashanka dawladda hoose dib u hagaajin lagu sameeyay oo bilaacdi magaalada Bacdama wadadii uu saaran yahay wasaqdii laga nadiifiyay kadibna la xiray oo godkaas loo bedelay god kale oo hadda aan tagi doono haddii Ilaahay raado godkan waxa lagu xiri doonaa silig iyo maartay waardiya la dhigi doonaa haddii Ilaahay raado dadka qashinka iska soo qaadaya ama xareeta ha noqoto ama baawur ha noqdo ama shirkad ha noqoto waxaan u sheegaynaa cidii lagu arkay iyadoo ku shubaysa qashin in talaabo sharci laga qaadi doono wuxuu wax u dhimayaa bilaacdii iyo nadaafadii iyo caafimaadkii magaalada ay wax u dhimayaa Bacdama magaaladii uu soo galay godka magaaladii ay dhaafi hayso waxa loo bedelay meel ka qarsoon dadka godka qashinka isagana kulay insha Allah waan dib u habeena lagu sameyn doonaa oo la balaarin doonaa haddii Ilaahay raado waxaan sheegaynaa wixii maanta ka dambeeyo oo taariikhdu ay tahay 27 bisha 2016 in aan loo ogolayn qashin lagu shubo godkii hore ee dawladda hoose ee qashinka ugu tala gashay Bacdama ay magaalada gaartay waa maadsantii لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد ما أنت أحمانين سبتيا تاريخ دون أيتها تدوي لغات مشي لغات لبكون لحي تبانكا وحا دقمدا قدوميها يقدوم كحجينا دقمدا وحا أمر لقى سو صار إن لحر قدك قشنكا هرمود ودوا أولامي صارنا إن لجوجي ما أنت وحي كدم بأن قشن وشو بكرن تدوينها reer Jubbaland ama magaalada Kismaayo degan waxaan u sheegaynaa inay qashinka meel kale loo asteeyay oo kan la xiraayo lana joojiyay maanta wixii ka dambeeyay ama dameer hawata ama baawur hawata qashinka aan lagu shubi karin ayaan idin sheegaynaa insha Allah ta'ala qofkii lagu arkay sidii gudoomiye ku-xigeenka uu sheegayba wuxuu la mutaysan doonaa ganaax lacagad iyo xarigba yaan lagu shubin qashinka waa la joojiyay maanta insha Allah ta'ala maanta wixii ka dambeeyay qashin lagu shubi karo meel kale oo loo asteeyay ayaan tagi doonaa anagana soo sheegi doonaa meelahaas ay qashinka lagu shubi doonaa insha Allah تعالى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فيلا يساك وعن كل تاجنا يقولكي دولة هوسة قاشنك لو شو بتري ومدبنا الاستعمال يقولك أسي مجالدنا وسوق جارتي وحنا نقضي ميل وضد السعران ورنتي دفع الحماق وقع مجالد يعيد من السنة عندها magaalada markii la soo galo waxa ugu horeeyo la arkay noqonaysa marka si arinta looga fogaado waxaan sameeynay in aanu godkan wixii qashin ah oo daadsanaan aanu aruurino oo maaragtay si hufan loo aruuriyo godka la nadiifiyo ka bacdina qashinkii meel kale loo astiyo godkan la galo saaka sida horey odayaashu sheegeen saaka oo bisha 27 tahay bisha 2 waxaan ku sheegaynaa godkan waa xiran yahay qashin dambe شغال لقى هي سيبا الكوريسية وعنو شيء إن قشن دم قط قشن كوا على وش بيا ملك لو قط كلو لو أستي أو ماشان هذا بورتا مركل لقى الله بترينا هذا كلاه قف كي يصير هذا ماشى هو وفقته ماشان قشن كوشو عنو شيء إن ماشى والله إلى علينا يا جناح يوحلا لكل من دونه عقاب يحرق كي وحواي ذاتك وحلا ثبا إن النظافة مجال وحكي إلى عليا إن وحدة مجال إلى عليا وذا كانوا واحرين قشن دبل لغما شبه godka kala la isticmaali doona oo iyadana aan hadda tagi doono insha Allah marka arintaas aanu saaka ugu yeeray wariyaasha aad iyo aad baa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan hadda dhex taaganahay godkii cusbaa oo loogu talagalay in qashinka magaalada lagu shubo maadaama godkii hore la xiray oo godkaas inta magaaladii soo gaartay la xiray hadda ka bacdi waxa qashinka loo isticmaali doona godkan hadda aan dhex taaganahay godkan waxa waaye waxa la rabaa in qof waliba iska xil saaro qashinka xataa sida loogu shubayo iyo meesha lagu shubayo waxa la rabaa in maxay ku raahdaa ay tahay si qaabaysan meesha dambe laga soo bilaabaa si aan wadada u goyn ka bacdina godku saasa loo isticmaalayaa godkii kale waa la xiray waxaan uga digaynaa marka dadka inay Soomaalidu inta yar ay soo soconayaan inta dhibsadaan in qashinka lagu shubo jidka hadda ka hor wadadan u dhaxaysa labada god baa qashinka lagu shubi jiray waa la nadiifiyay waa aragteen lama ogolaan doono cid dambe oo qashin ku shubta meelahaas waxaan uga digaynaa dadku inay nadaafadda oo ilaashadaan godka kan hadda aan dhex taaganahay cidii qashin daadinaysa ay keento halka cid kasta ahaato
lama ogola in meel bannaan qashin lagu shubo godkii kale waa la xiray waxaan rabnaa laga bilaabo maanta oo ay bisha 27 tahay bisha 2016 godkan baa qashinka loo isticmaalaya wixii ka dambeeya maanta cid lagu arko iyadoo halka ama meel kale qashin ku shubaysa waa cid khaldantay weeye lama aqbali doono aad iyo aad baan mahadsantahay. Wassalaamu calaykum warahmatullahi